nimankan khawaarijta ah ee dhibaatada badan iyo culayska dadka ku hayo waxaan leeyahay wiilasheeniyo horta ka soo noqda meesha aad aadeen wadadii saxdeedna maaha intii hadda caqliga iyo dareenlana way arkaan meeshaasi meeshii saxdeeda la aadi lahaa inaan ahayn ka soo laabta oo ummadiina iyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo dowladdiina u soo laabta baaq guud oo aan ka daali doonin inaan mar kasta dhahno waayo waxaan intaas ugu darayaa tallaab kasta oo maanta xaaladda jirta markaad aragteen kadib aad sii qaadaan dembiga iyo dulmiga unbay idinku sii badan inaad dadka Soomaaliyeed maanta sii dishaan oo sii laydaan oo xagga qarax ku qarxisaan oo xagga qarax kale ku qarxisaan waxba ma tarayso waxbana ma celinayso xaqinka iyo dhulka xaqinka dhamaado dhulkuna waa soo haraa war dadka Soomaaliyeed idinka un baa dhamaanaya dadka Soomaaliyeed way soo harayaan dadku way taagnaanayaan way jirayaan way joogayaan marka in maxaan ku raadayay aad sii fogaataan aada iyo dambiga iyo maxaa cuqubada Ilaahay hortiisa aad galeysaan aad sii kordhisaan xikmadi kuma jirtaan leenahay kuwa waa shay ee madaxu uu ka xumaaday yaana idisi madax mar mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladnimada ee meel kasta joogta iyo dadka war wanaagsan ee hogaamiyaasha shacabka ah ee dadka la dagaalka dadka ku jira waxa leeyahay nimankaas ilaa aan ku hubinayno yaan loo waxaynin mar walba waa sheega waa ku celiya arrinta qabiilka shabaab nugu qabiil ma ahan intuu fikirkii iyo taladii shabaabnimada xumbaarsan yahay niman yaa nugu qabiil ma aha warar badan ay soo gaarayo deegaanada qaarkood dadkii qabiil muxuu ahaa shabaabkii ka tirsana oo ama qoryaha qaaday dhalinyarada ah ama ush adeegaya shabaab ee xoolaha u aruurinaya ee dadka u aruurinaya ee dadka u wacyi gelinaya wixii xaaladda hadda bugal gaarna walba inuu inta yimiday oo yiri anigu hadda shabaab baan awal dadka ka xigay oo aan dadka ka ilaalinayay oo maxaan ku iraaday qabiilkan maslaxadiis ku maqnaa qabiilkiina uu yiri ha laga leexday anaga u dirnay waxyaabo la midayo war meel la isku dira meeshaas kuma oolo orod dadka Soomaaliyeed soo laay ama sidii loo laay lahay soo fududay qof loo diri kara ma jirin iyo qof loogu cudur daaraya ma jiro Allah ka keenan leeyahay qabaa'ilka iyo dadka iyo deegaanada dhahayo nimankan annaga shalay shabaab u dirnay war shabaab dadka Soomaaliyeed oo leeynay gumaaday meesha meel dad loo diro kuma oolin maxaa u dirtay dadka in wax ka soo laayad u dirtay Soomaaliya geel soo aruuri beerta badarka ka soo go'ay maxaan ku raada qaar ka keen wiilasha keen intaasoo boqol kun ay ku qoran reer hebel maxaad u dirtay oo u soo qabtay dadka wixii ay dadka shabaab ku sameeyaan warax ka si xun oo lagu sameyn kare miyaa dhinay haddii dadka ay dilayeen oo boqol iyo boqolaal ay u laayeen xoolahooda ay dhacayeen ay karaamadooda iyo sharaftooda bahdilayeen ay dulminayeen waxaad u dirtay ee dadka uu ka badbaadinayay ninka reer hebel ahoo maxay ahayd kan u dabcaya ee qabaaye hadee reerkii baaba ku dhegan ninkaas ay yala maya niman yaw nin shabaaba laguma dhegi karo shabaabna midka qoraga sitay midka qaraxa sameynaya bas ma ahan shabaab kii qoraga sitay kii qaraxa dhigayay isdilayay ma aha kaliya horeyna waa u sheegay waa ku celinina nin kasta oo camalkii shabaab ee dalka ka socda ka mid ah shabaab waay sidiisaba kategorigiisu waa shabaab waa ka soo noqoyay waa ka yimiday waa ka tanasuliyay afkaartii dhibka badneed soo ma aha aan isla ogaano inuu ka tanasul laakiin inuu ku dhex fadhiyo oo taleefonna 24 saac haysto oo shabaabkii la hadlayo oo xaggay ka soo dhaqaaqeen iyo xagga laga soo duulay xagga la degan yahay iyo hadday seexdeen iyo waardi uma joogo meedebel iyo inta uu taleefanka la daba taagan yahay oo uu ku hadaaqayo ku hadlayo adiguna waa reer hebel aad tiraado oo maxaan ku raadaay aad waxayso cudur daar malaha ciidamada difaaca shacabka ciidamada qalabka sida siyaasiyiinta dawladda mustawaheeda kala duwan ama heer dawlad goboleed ama heer dawlad dhexe ninkii shabaab u adeegay soo dhaweysi malaha waxa bas in la soo wado meesha lagu xaqiijin lahaa
inuu horta ninkaani fikirka qofnimadiisa ulama dirirsan dowladdu ulama dirirsan iyo shacabka Soomaaliyeed intaba qofkan Soomaaliga ah ee wiilka ah ee adeerka ah ee abtiga ah ee ama nabadoonka ah ama wuxuu doonaa lama dirirsan qofaantiisa wixii cadawgina haystay iyo colkiisii iyo afkaartiina lagu dilaayay ninkaan ma ka tanaasul fursad inay bixiyaan waaya la soo xaqiijiyo adar cali waa ka tanaasul iyo wixii uu shalay ku jiray oo duruuftaas ay gelisay laakiin hadda anigu nimankaas waa asaas hal la xaqiijiyo intaad iska soo aruursato gudaha iska soo gashan abeesaad marada faraqeeda gashanaysa ogaaw mas'uuliyiinta iyo madaxda siyaasiyiinta ciidamada kuwa maxaan ku raadaay lafsadoodu ninka waa qabiil waa reer hebel danahoodu ilaalin leeyahay markii reer hebel la laynayna danahooda miyay ahayd reer aan la laynin on dad laga layn oo kuwa laga dulaysan miyaa jira oo shabaabku ay maxaan ku raadaay tuba muxuu ay caanaha ay meel u sureen oo muxuu ka ay ka cabiyeen miyaa jira tuug iyo tuug kalkaal xoolaha dadka laga soo boobo nus la sii jiray geelan isoo qumi intaas adiga ka wado arigan isoo qumi adigu intaas ka wado lacagtaan isoo aruuri intaas ka qaada la dhihi jiray ha macin bidin laakiin maanta kii fikirka xambaarsanaa iyo kaan xambaarsaneen seed ku kala ogaanay inuu reer hebel yahay maad ku kala ogaan kartaa kuma kala ogaan kartid kuwa ku dilaya ku laynayaba reer hebel ay kula ahaayeen kuwa ku qarxinaya reer hebel ay kula ahaayeen shabaab kuma dulaysanayeen reer hebelka aad tahay haddaan dhinac uga jirin masaari geed ma goysay geed kalaa ku gooyey gaal hadduu islaam wada nama soo galaynay tiri muxuu ahay maymuun war shabaab deegaankan iyo dalkan ma qabsadeen mid kula qaraaba ah oo kugu qabiil oo kugu jufo ah haddaanu hor ordayn aanu hor socon marka kii shalay hor socday iyo kii kale iyo maanta inay ahal iyo arxan iyo qaraabo noqdaan ayadoon halaga joogaan waa ka digaynaa taas ab marna muxuu ahay wax la aqbalayo ama la aqbali doono ma aha meeshii maanta laga soo dhaweeyay waa laga daba tagaa waa la soo waxayna haqno ku karaama beelin hana ku eedoobin nafsadaada dambiilaha ku noqon ilaahay hortiis iyo ummadda horteedaba ha ku eedoobin hana ku dambina ku qaadan taas markaa intaas uga baxo deegaanada dhibaatooyinka ay ka dhaceen tan shabaab anaga dhib noogu fulan mid kale dhaxdayna ah dhib la aqbali kara ma aha dhib la aqbali kara ma aha meelaha wax ka dhacdhaceen meelaha qaarkood waa la daaweeyay qaar hadda loo sii socdaa mas'uuliyiinta madaxda dalka oo dhan ay u socdaan in la daaweeyo ka istaagmayno dadka wixii dhexmara laakiin inay wax dhexmaraan ma rabno marka horeba yaanay dhicin energy iyo tabar iyo waqti aan naga go'in inay nooga baxaan cali iyo jaamac muxuu ahaa isdilina isdhaafa inay nooga baxaan wax oo sax ma aha waxaan rabaa kale halkan ugu dambeyntii inaan baaq uga jeediyo dadka reer Laascaano iyo dowladda Soomaaliland intaas aan sheegay unbay ayaguna ay ku dhex jiraan war xilligeedii ma aha xilli la isdila ma aha 32 sano ka bacdi inaan isdilna sax ma aha waxa dhacay sida aan maalin dhaweeyta baydhabo wixii ka dhacay aan uga tacsiyeynay oo maalintii ka horeysay duurkaasi baadiyaas qabaa'ilka isku dira shabeellada dhexe aan uga tacsiyeynay yaan uga tacsiyeynayna ugana xunnahay waxa ka dhacay baryahan dambe magaalada Laascaano dowladda Soomaaliland aan ugu baaqaya qoraga xalka kuma jira dadka qoraga inta laga daayo dadka dad la hadla loo soo diro dadka dad la hadlo oo ay muxuu ahay hadalkooda dhageysanayaan waliba ha loo soo diro calool waxay ku bukootay laguma daaweeyaan leeyahay haddii dadka dad ay dhibsadeen iyo saraakiil iyo ciidan iyo dad hadallada qaarkoodna hadallo qurqurxoon maahane ha la iska daayo dadkaasi dhibaatada haysataa iyo waxa uu meesha ka dhacay waana dhibayaan waa ka damqanaynaa waa dad Soomaaliyeed meel kastoo ay Soomaali ku nooshahay dhibaatada gaartahay waa ka damqanaynaa dadka reer Laascaano idinku lafsadiina tala u soo istaaga oo cunfiga iyo colaadda iyo hadallada dhibka badan ee media iyo meelaha la marsiinayaa hal la joojiyo waxba nooma soo kordhinayaan waxba nooma soo daaweynayaan
mas-uuliyiinta iyo dadka hadda muxuu ahay dowladda somaliland waxaan leenahay sida bal si kale ha lagu dayo sidaan si aan ahayn ha lagu dayo daaweyn mayso geel duday dhexdiisu xara lagama qabto yaa la yidhi dadku hadday kacaan si loola dhaqmaa jirte ciidan ma aha sida muxuu ahay loola dhaqmayo annaga haddii aan nahay dowladda soomaaliya dee soomaalinimo ayay noo dhibay arrintaas meel kasto daaf geeska ugu xageeyo somaliland hadday tahay iyo geeska kale soomaaliya hadday tahay iyo soomaalida xataa xuduudaha ka baxsan hadday dhibaatoonayso waa la xanuunsanaynaa waanana dhibay raallina kama ihin marmarka qaarkoodna qof calankii soomaaliya oo buluugga ahayo xidigta dhexda uga tiilasadaha u lulaya ee haddana dhibaateanu marka aragnana waa si gaaran haddana usii xanuunsanayna oo gaar ahaan siyaasada noogama jirto wax kale noogama jiraan dadkaas inay deganaadaan maamul iyo talo iyo hoggaan iyo maxaan ku raha deganaansho iyo amni inay helaan waayo waxa aan ka danaynayno waa laga yaabaa warkaygaasi in dad badani si kale ay u fafasiraan sida marar horoo badan ba dhacday laakiin haddana inaan dhahna ka xishoomayno kana gabamayno arrinta hala dejiyo nabadaan ku baaqaynaa dowladnimo nabaday ka dambaysaa hala dejiyaan leenahay dadka reer laascaanana waxaan leenahay lafsadiinu dega oo hadal usoo istaaga oo gubidda iyo jibinta iyo maxaan ku ihahdaa daaya dhiiggana yaa dhiig meesha ku daato dhibaato unbaa ka imaanaysa wanaag iyo khayr ay ka imaamayo walaalahaasna intaasaan ugu baaqayna haddii aan la yidhaah dadka soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaan waxa fiican ha u rajeeyaano muxuu ahaay colaadda iyo culaysyada iyo ciriiriga meeshaas ka jiraan dowladaha iyo dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiintuna intay ka gaabsan karaan ama ay dib isu celi karaan ay xalka soo hormari karaan iyo dadaalada iyo niyad samaanta ha soo hormariyaan inteena kale ballanteennu waxay tahay dagaalkii weli waa socdaa maalin walba dhallinyaraa naga dhimanayso kuwaa naga dhaawacmayo oo isbitaallada noo jiifa oo yaal xaaladdaas annagoo ku jirnaahe ogaan la-aan yaanan shabaab ugu adeegin ogaan la-aan nimankaas khawaarijta ah ee nabaddiidka ah ogaan la-aan yaanan ugu adeegin dad badani ogaan ugumaba adeegayaane kuwaasa jira ogaan la-aan ugu adeegayo oo wax kale iyo macnayaal kale iyo wax ku samaynayo qaraxyada maalin dhaweyto maxaas ka dhacay iyo dadka ku dhintay iyo agabka iyo maxaan ku ihahday deegaanka ku baaba'ay kuwa khawaarijta ana waxna ma gartaan waana niman jiran oo caqli iyo maskaxda si ay ka noqotay laanna wax maslaxadoo ugu jira ma jiraan ay ka helayaan maanta waa dileen dadka waa dhamaatay dadka cara un bay kasii qaadeen ma ogi hadda wax oo warna marka waana qarxinayaan waana dhaaf waana dilayaan naga daaya waqtiga la dhilaha lama joogo caraa laga sii qaaday iyo xumaan loo qabo iyo nacayb loo qabo iyo dagaalkooda in lagu sii dhiirado oo lagu sii adadkaado un bay u dhalay dembigana waa kusii siyaadinay maanta maalintii inta qarax dhaca la iska iloobo marka qarax dhaca kadib baaris meelihii laga soo agaasimay dhulkii laga soo agaasimay dadkii joogay oo soo hadlaya hadda oo dhahaya maalin dhaweyto anagu maanaan ogeyna baabuurka guriga ku qarsoonaay markuu soo baxayaan aragnay baabuurka qarxay inuu baabuurka soo sheegay hebel iyo hebel iyo hebel yaa ku jiray waxa oo ka shaqaynayo gurigaa deganaayo tuuladaa ku jiray geedka waa la sheegayaa maanta maalintii hore maaha shabaab waa siran yahay niman waaweyn oo berri hadday isi soo dhiibaan xataa lala xisaabtami doono yaa ka soo baxaya dadka laana ninkii si ula kacata dadka saas u laaynayo berri muxuu ahaay shabaab ma ka yimid iska haye iska soco ma gasho waxaan rabaa dhallinyaradeenna inay meesha ka soo noqdaan dadka sabar taag waaye wixii la dhihi jiray qaarkiis dadka shabaabka mugow jabay iska soo noqday laakiin weli shabaabkii ah oo taleefanada ka daba dirayo qabiilow ka fogaw iska ilaali awal waaba iska taqiino xaggaasaadba uga gabanaysayo waa muxuu ahay aada u waxaysanaysay ood ka gaargaarsanaysaye hadda adoo gacalsanayo oo gacal uu ku yahay ayuu haddana uu ku laaynaya o eberkaa dhigaya wuxuu kugu dilayaa inuu taleefon diro hadda ku tilmaamo meesha aad ka liidato waktiga saacadaha aad liidato dhammaan inuu ku sheego
ciidamada qalabka sida meel kastoo joogaan awaamirtiis horaan u bixinay lama qari karo lamana aqbali karo lama qari karo lamana aqbali karo see iyalna hadda reer hebelaa ku dhegan wax la yidhaha ma jiraan reer hebel kuma dheganaa karaan nin shabaab ahaa shalay kuma dheganaa karaan marka walaalayaal fariintaas dadkeena oo dhan ha qaateeno dadaalkaas waa socdaa alxamdulilah ilaaha mahadle meel fiicana la marayaa nimankaasina waqtigoodii waa dhammaaday kuwa qaarkood oo de nimanku niman xag jirahoo naqaanoo fogaado waaye weli xaqiiqada waa ku qancilaayeen waayihii inay dhammaadeen weli waa ku qancilaayeen laakiin insha allah ilaahay uga qancaan waa sii daba tukubayna waa daba soconaynaa haddii alla yidhaah ka hari mayna kana caajisi mayna insha allah aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu